بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله داوديال waa showgi gaar haye oo idin kaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif London jooga waxa isku soo dabriday ustaad Muxyidiin Diiryanuur wadani oo Canada jooga barnaamijku waa wareysi aan la leenahay ergeygii hore ee noo fadhiyay Mareykanka waqtigii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed Abukar Armaan degan Mareykan ka mid ah aqoon-yahanada farkutiriska ah ee xaqiiqda ka sheega xaaladda waddanka ku sugan yahay isagoon cidna uga aabiyeelin mawduucuna waa mid ballaaran oo ka hadlaya arrimo ku hareeraysan shirkii u dambeeyey ee Somalia Partnership Forumkaas iyo isbedeladii muddooyinkii dambe ka jiray geeska Afrika oo ay ku jirto xataa ammaanka caasimadda Abukar soo dhawow السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله ودوها عبد الواحد وما كنت ولا. aad ba u mahadsantahay gaar haye waa gole ay u gudboon yihiin gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan dawladda guna kama qaadano gacan saar lama leeyahay mucaaradka cid gooni ahna uma adeegno fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa laakiin danta guud waa mid gooriya ayaan gabagabada hadalku waa sidii gujis Allah u naxariistay u lahaa aanu ku garawne gaar hayow geeyiga ilaali dhageystayaal saa inay ka ballan qaadnay waxaan idin keenaa labayntii Soomaalida oo culumadii leh dhaqaatiirtii aqoon-yahanadii maadiga hal abuuradii iyo dadweynaha oo dhalinyaro iyo waayeelba leh marka qofkii raba oo ku taxanayn gaar haye linkigaas ha ku dhufto markaas markuu galo gudaha like ha saara ama follow marka markastoon hawada soo galno waxaad helaysaan ogeysiis live marka waxa martino asaad idin sheegay safiirkii hore ama ergigii hore waa dhigi kartaa dawladda Mareykanka noo fadhiyay waqtigii madaxweyne Shariif haddaad maqasheen gaar haye oo gaar hayaashii ugu waaweynaa weeye Soomaalida marka ha laga faa'iideysto haddaan fursad u helno qoraalkiinana ishaan ku haynaynaa waa isku dayaa inaan wixii aan ka tegay aad weydiisaan mudane Abukar saa la socotay ilaa waagi carte dawlad baa si dad ban loo doortaa beesha caalamkuna shirar bay qabanaysay maxaad is leedahay marka dawladdan iyo shirkan hadda yani marka hore marka la eego waa kaga duwan yihiin dawladihii hore iyo shirarkii hore loo qaban jiray si ay u kala horeeyaan بسم الله عبد الواحد وما كنت وسؤال أبو فيعان كنت يعني مركي فبراير سديد أنا ملينا سنة في مسؤولة في بريء لدورتي أما عبد الله فرماجو ملحوين عصب نويين كنت يعني بس في مدوين العين أنا يا سجن personally waxaan u haystay yani in isbedel weyn uu imaan doono qaabkii hore oo aad hadda yani si fiican dhac ugu samaysay carta kasoo bilaabmay oo iska transitionalka ahaayo haddana liyo transitionalka waa laga baxay kumeelgaarka waa laga baxay xilligii kala guurka ama dadda sidii u yaqaanaan kii waa ku rajo weyneen markuu farmaajo yimid in qaabkii wax hore loogu samayn jiray laga bedelo inaan ahaano yani ku adkaysano madax banaanida qaranka Soomaaliyeed bayskale oo wax walba oo Soomaaliya loo qabanayo oo noqdo wax Soomaaliya gudaheeda lagu qabto oo beesha caalamkani kolleyto kaalmo waa la isaga baahnaanaya laakiin aniga personally waxaan aaminsanahay iyagaas inay qayb ka yihiin mashaakilada dadkan soo daba dheeraaday oo naxariiso ka wadan ahaan oo wadankani kusii burburay haddii aan faryar ku siiyo beri hore 2011 aan u malayna anoo weli xilkii agdaaytay ka hadashay weli haayo waxaan qoray maqaal yar oo leeyahay xilligii oo معناه ودن كودن ومعمولاي أما باش عالم كيف معمولاني في والسود البيت
oo laga kaaftoomo deeqyadan waxaan ay bixinayaan ilan deeqyadiga waxay yihiin kenya ama wixii lagugu soo jiidanayay adiga inta aad gacanta u howsanaysid runtii ma madax banaanid marka ra'yigan soo jeediyey berigaasa wuxuu ahaa xuduntaan aan jarno oo mataqaana tugsiga ku salaysan aan jarno haddii aan rabno inaan mataqaana deeqda weydiisano dowlado islaamiga waxaa jiro dowlado waxaa jiro oo asxaab aan nahay oo si gaara yani aan saaxiib ugu soo ahaan tahay iyo taariikh ahaan markii la fiiriyo dowladahaasaa si toosa mataqaana mucaawanada iyo dadkaan hadda ku horaacinayaan inta badan deeqyahan waa taqaanaa siday u shaqeeyaan intaasoo bilyanaa iyagoo waxaasaa lagu leeyahay laakiin runtii waxa soo gaaro wadanka ama shacabka si gaar ahaan u soo gaara ama danta guud lagu fuliyo waa wax yar marka waxay ahayd sheekadoo dhan aan ka kaaftoono heshiisyo aan la galno dowlado gaar oon aaminsannahay isleenahay waxay rabaan ma qabtaan kuwaasna haddu dowladaan la xisaabtano kii berigii kolaytooda yani dad badan marayaatin oo yani wax ka hadlay wax sii dabagalaba ma jirin kii oo laga soo tagay waxaan usoo noqonaa february sanadkii oo soo dhaafay qorshaha wuxuu ahaa inuu farmaajo yimaado oo mataqaanaa wax ka bedelan kuwii hore inuu la yimaado inuu yiraaho war wadankan wax kastoo ka socda meeshaan waa annagaa hogaanka annagaa qabsanayno shirarkeena anaa walaalahay igu tagaayo la hadlaayo anaa la heshiinaayo sidaas in wax loo qabtanaana tiina waxaan u malaynaa inaysan dhicin oo wax walbaba ha sababaane waa may markii la gaaray sanadkaas isaga uu yimid saa xasuusatidbo waa shirkii london waa ti looga yeeray shirkaas london oo runtii yani lamid ah midka hadda shalayki soo xirmayo roshal iska dhacaayo kale wax ay ku kala duwan yihiin runtii aan aniga shaksiyan aanan arkin marka waxaad moodaa sidii oo kuwii hore i samaynayay una haddana lagu soo aruuray oo in magaalooyin waaweyn loogaga yeero ayagaasna kolleyto mar walbaba fasaxay u ahayd xukuumad kastoo imaadaba sidaad ogtahabo cidna fadhisa malaha madaxweynaha ka bilow ra-iisul wasaaraha ku xiji ra-iisul baarlamaanka sirtan degree marka qaarkood aan iraaho laakiin labadaasaa badanaa u badnaan jiray si gaaran madaxweynaha ugu badnaan jiray in oo laba sidoo kastaba shir meel fadhaa adduunka loo sii ordaayo adduunka meelay ka jirta malaha dowlad oo aan waxba haysanno faqiir oo weli gacmaha hoosanayso haddana intaasoo shir habeen imaan intaasoo boqol oo qofood raygaal ugu sii ordaayaan inta qarashoo ku baxaysana dadkaa lagama sheekeynayo sideedaba shirarkaasna waxa waaye waa shir oo yani xaqiiqada markaan shacabku u sheego waagii aniga aan ogaa hadda maanta wayba ka lacag badantaan umalaynaya marka uu madaxweyne safrayo oo kale safar kasto ilaa iyo 180 ama 150 ilaa iyo 180 iska ay waagaas ahayd waa general assembly oo kale markii UN soo aaday lacagahaas kaash waaye sadortaaga lacagahaas safarka lagu galo cid isu xisaabtantay cid oo rasiidkii meeqoo ahaa iyo hoteeladii meeqaa ku baxday ma jirto maantana intii waagaas iyadoon waxba la haysan sadortaaga waxa lagu noolaa waxay ahayd 2 milyan iyo wax saasaa kasoo geli jiraan malaynaa dekadii waxaas inta kalena macnaha iyadoo eedinaa meesha lagu qaybsan jiray sadortaaga oo dekadii macnaha waxba kama soo geli jiray maanta way ka lacag badan yihiin dekadiina wax badan kasoo galo wax badan kasoo galo reportskii oo kaleeto tax laga qaado dadka cashuuro laga qaado saasay tahayna intaasoo malaayiin oo ama ha noqoto EU ama ha noqoto carabaha habeen maalin soo galaayo sanadii markaan hadda joogaan talada wax substantive oo la taaban karo maanta yani lagu qabtay lacagahaas cidlad malaha waa business as usual safarada sidooda waaye cash plus easy
madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha lacaga u gaaray waxay leeyihiin hadda ka hor iyadana corruptionkii ka hadlaya isaga maqaal ku daray aan ku soo celinaya hadda si aan dadka ugu baraarujiyo xafiis kasta wuxuu leeyahay lacaga oo waagaas ku dhawaad ilaa $1 milyan wax saas oo kale wixii adiga talyaanigii isticmaalkii laga baxday oo ahaa special political wixii dhihi jiray oo in mataqaanaa ciddii markaas xafiiska ugu imaado ugu laaluush toosa waaye waxaas ma xisaabtamo lacagtii oo bishii hore la keenay meeqaa ka hartay iyo tan lagu soo daray meeqaa ka hartay wax isdhahaya malaha ilaa imaandadana waa sidii qarashkaas weli xafiisyada sidii u helaan sidii mataqaanaa lacagii kala dubaraan marka su-aashaadii ahayd maxaa isbedelay aniga runtii yani waana iyadoo aan aad u dhibsanayo runtii because dadkeena waxaad moodaa baryahan waxaa lagu aqriyay waxay isku qaldaan tafaa'ulkii shu'unkii wixii dhan isaga qasan marka waxay ku leeyihin ma good news noo sheegtid marka wax fiican maa noo sheegtid warsantan haddii uu dad qabsado ma nin meesha kuma dhadaadinaya dadka oo sheeko kuu sheega ama kuu yeesaya ama dhaantaynaya mise waxaad rabtaa qof wax kula geliya keliya marka waxaad moodaa waa isaga qasan tahay maanta dhib weyn hayso maanta khatarta waddanka ku sugan yahay aniga ahaan shaksiyan marar badanna waa iri waxaan u haystaa xilli runtii aad iyo aad iyo aad iyo aad uga khatarsan xilliga isticmaalka in la maraayo ana waagii hore waa la yaqiinay isticmaalka khatartiisa qof walba waa ka warhaayay khatarta meesha tahay iyo cadowgu yaa waaye iyo mataqaanaa laisu kaashanayay waa laga hortagaayay maanta laakiin tii ma jirto maanta inta sabcaad badan ay jirto maanta hal group keliya ma aha waxa oo runtii yani cadow ahaan ama dhibka kugu hayo adiga ahaan ka wadan ahaan marka iraaho marka taas waxay ku cadaynaysaa hadalkii aan hore u iriyo ahaa khatarta maanta waxay ka daran tahay tii hore marka khatarta saas u weyn tahay waa in la hadlo waa in xaqa ahaa la sheego dadka la baraarujiyo runta loo sheego iyadoon mataqaanaa lagu xishbalaynayo iyagana wixii wanaag ahoo ay sameeyaanna loo qiraayo leanna runtii yani haldeecan mar walba inay ahaato waa laga fiican yahay inkastoo mucaarabkii badanaa saas ay sameeyaan anigana dhowr jeer waa ka hadlay mucaarab mihi ani waxaan kaga duwanahay iyagaas waxa waaye qoladan hadday wax fiican hadda sheegto ama samayso waa sheegtaan wax badan laga sheega waa qof walba iska sheegin kara waxaan ka wadayaan haddii wax fiican ay qabtaan qofka ugu horeeyo u qiraayo inaan aniga noqdo mas-uuliya iga saaran haddii kale beenaan iyagaas ka sheego haddii kale wuxuu waa siyaasada inaa taasna xaq ma aha marka taasaan aniga iyo mucaaradkii kala duwannahay marka in laga hadlo wixii xumo ay samaynayaan ama la yiraaho waxaan ku shalay maanta waxa dhacay shalay waxay dhacay waxba kuma kala duwan in la yiraaho laakiin kuwaajibna saaran waa fardacayn waa hadda waqtigan xilligan la marayo oo qofna runtii yani uusan siin bateri karin marka jawaabta ay siinka intaas inaan ku ekeynayo waa tahay weli waxaynu ku jirnaa arrimihii yani shirka soomaalida tirada lacag rag feera ka xisaabsan marka lacagtan inta badan amisom bay aadaa inta kalena saa sheegaysay diyaaradaha iyo hoteelada wafdigu aad buu u badnaa xataa soomaaliya markii la tago calaykum salaam markii la tago soomaaliya xataa hoteeladaas diyaarad baa lagu raacaa baydha baa lagu qabtaa seminaar hoteelaa lagu dagaa cuntaa lagu cunaa inta badan lacagtu saasi ku baxdaa marka lacagtan ma dayn baa nagu soo qormaysa mise waa deeq hadday dayn tahay waa la fahmi karaa dhibtay keenayso laakiin hadday deeq tahay midowgan yurub lacagta intaa tirada la-eg aan dadka aadayn maxay uga dan leeyihiin maxaa beddelkeeda ay rabaan ayagu waa su-aal fiican runtii yani markaan bani aadanka sidiisaba awood siyaasadeed qofka si u raadsadaa hadafku ka leeyahay qofna hadafkiisa dhan waxa waa inuu waddanka wax ugu qabto matalan oo kale waddankaas oo masala qof waxa waaye inuu awood macnaha siyaasadeed u adeegsado muruqa dadka kaleeto oo mataqaanaa ugu xoog sheegto inuu ka helo qofna waxa waaye inuu maal ku aruursado xalaal iyo xaraam
ama magac ku yeesho isaga gaar ahaan buuniskaasi wasiir u ahaay madaxweyne u ahaa safiir u ahaay safiir ku-xigeen u ahaay waxaas qofba siyaa marka sababa keenta dadka marka ay mataqaanaa hal waxay ka wada sameeyeen intooda badan maanta runtii yani waa buuniskaas qofka xukunka haayo madaxweyne ha noqdo ama madaxweyne dowlad goboleed maanta yaraha jibsanada waa gali doonaa iyadan insha allah dowlad goboleedkii oo madaxweyneyaasha wada lahaayo oo dhexdooda hadday meesha wada joogeen iyo madaxweynihii oo qaranka masalay maanta runtii yani wax ay ku kala duwan yihiin haba yaraatee ma jiraan waxa keliya marka waxay noqonaysaa yani sidaas loogu madaxweyneeyo markay shirarka noocaas oo kaleeta tagaan president co-chair this co-chair that chairman this taytala noocaas oo runtii ay gurigaaga markaad kusoo noqoto adiga kaligaa qolkaaga ugu jirto sideeda subxaanallah wuxuu dhammo intaanay ahayn wadankaygan waxba uma qaban waqtiga ay u socdaan anaana berinta ilaahay ula xisaabtamaya waxa marka iyagaas deeqaya markay bixinayaan ama ay u keenayaan waxyaalo oo runtii yani aniga indafacaad ahaan aan u arko kama duwana NGO-yada iyo waxa lagu hordisiiyo waa pacifier waa cunuga yar waa taqaanaa markuu beebiga uu ooyo dambeeladan yar oo afka loo geliyo waa pacifier waa intii ka joojinaysa waa mashquulinaysa wax naaskii oo kale hooyadiis oo kaleeto afka loo geliyo lugluuga kuwaana waa sidii oo kale NGO-yada masalan haddii aan muqaarano ku sameeyo labadooda soo barbar dhigo NGO-yada markaad aragto kuwa Soomaalida masalan NGO-yo waxaa jiro oo mataqaana service iyo ama u adeega shacabka hadday rabaan yani andaan nabo waxyaalo kalaba oo hoosta kuma wataan oo aan badnaxno shacbigaasiba adeeg saxaasiya kuwa yeesha caalamka markay rabaan kuwaas oo kaleeto inay soo xaraystaan waxa la sameeyo waxa waaye diyaaradii afrii looga ka dhigaa masalan oo kaleeto ama qofkii wuxuu rabaa baydhabo inuu aado kala diyaaradii intaad sii raacaysa aniga marka haddaan NGO iyo qola kale u shaqeeya ama human rights iyo xuquuqul insaanki waxaas qofka hadii aan ahay masalan والله ما نهري قال مربوط مكان ربي لي راه دياردي في بحيث أوضة في كل مكان مدحنا اللي بي أي بي عن قلب وحدي كسب بفكر إن كجاب في مكان يجي قلادات سميان إن بديل أو كذا إلا مثل اللي قاعد قبتين عدو عدي درجين سما لحنا عدنا بالوصول طورة يعني سوق بين هذه كمركو كان نقول على قفو أدي أصلا حتى يسوي ما رحلنا كمدونا مرة ما رحلنا واسوي وكذا سجد كان يرجع والله فينا الشركة كان لورجية هاي وكان قطرهم كناشن كدقي إن دور مصورة سجاها صوغ على منطقة صحفي تي في ويعرف هو هذا أنت بالضبط أساسا بدك تفتح لما سنة ما في بدك كده كانوا حيسوا حيستان وإلكشن يا إمانة يا عليا بدلا عاشا بدلا يسمى حسين بدلا مختلف إتكهد لي يسموه يعني muxuu qofkan waxaayo iyo qofkan imaan doono maxay ku kala duwan yihiin ra'yigu qofkan imaan doono uu wato wadanka ku saxayo muxuu yahay qofka hadduu sheekada ka soo bilaabo systemkii kii hore ku yimid anana rabaa inaan ku imaado waa dad isku dhiibay dadkii marka horeba ku tashtay oo diinka soo sameystay inkan beesha caalamka hal yiraaha xalanaha la yiraaho magaceeda doonaaba ugu yara laakiin dadkaas waa dad soo wada tashtay system soo samaystay waa systemkaas marka dhowr jeer aan kaga hadlay haddii aan la wadaago dadka daawanaya ama dhegeysanaya waa markab weyn oo maraakiibtan adiga shidaalada lagu raro oo kaleeto ama kuwan oo diyaaradaha qaado iyo oo baddaas dhex socdo waay adigii madaxweynaha ahaa marka lagu soo doortay adoo jaakadaysana waxaa lagu dul saaray markabkii lagu dul saaray markabkii ku saarantay adigii asxaabtaadii intii kaloo magacyada la siisiyo titleskiina meelaha laga roodaysa maanta meeshaad ku socotaa marba dhinacaad u socoto haddii aad u socoto koonfur haddaad u socoto waqooyi haddaad u socoto bari haddaad u socoto galbeed
ma markabka meeshaad u socoto u socdaa mase markabka meeshii marka hore hadafkiisa ayuu ku socday weliba badiyo ku socdaa dadkan waa go'aansadeen inay khayraadka siday doonaan u qaataan raqiis inay ku qaataan dadkii matalaana Soomaaliyeed inay isku wada mashquulsanaadaan وفي هذا الشراء وهو كدعي قال هذا عاوز بس موضوع وموضوع وين أنا وقت محدد لأن ما كثر حد عبرته إلى أن ما بدنا نقول حديا كثير عن الحين عم يوحي ستوصل نحن وصلنا هذه الدكتور وأنا أقول حن طبعا إن سؤال اللي وصل اللي يموت مركا براسل صدق سوى حرمة كنت يسديد ودن أياك سوقيش كنت يسديد ودن sidoo kale shirkiyo London waagi kool ugu qaban jiray iyo kool ka dambeeyay badmood marka waxa isweydiin la waxa waa konton iyo sideed ka wadan oo ka soo qayb gashay ma shaqo la'aanta ka badatay yani maxaa keenay ma lacaguna islamaan sidii diibaano yani wadan Soomaaliya nidaamka dad Soomaaliya jecelihiin oo deeq u keenay iyo sheekada mise iyaga hadafaa keenay meesha iyo danaa keenay haddii dana keeneen iyaga danteena maxay tahay marka raggi meesha tagay annaga nasalayo madaxweynahan ugu yahay ma farmaajo iyo intii kaleeto gobolada iyo sida isku arkaan baa madaxweynaha waxay doonaan isku arkaan maxaa hadafkooda ahaa maxay noo soo dhiciyeen maxaa meesha looga hadlaan haddii ay ahayd marka madax banaanida wadanka masalan oo kaleeto hadday su-aasha weydiisa ku hadleen markaan arkay baatay ay soo saareen wallahi waa qosay sababtaan u qosay waxa waaye qodobka 12 wuxuu ka hadlayaa sovereignty Soomaaliya waa mid baatay intuu deeyeen waa masiirka ama matalaana shirka markuu dhamaado soo saar qodobka 12 hadaanan qaldanin ma horyaal baatay ay soo saareen laakiin xalan ku qosay subhanallah look at this يعني مدحبنانيدي ودنka ayaa wuxuu yahay qodobka labaad markii dhammaan subhanallah ayaga ama runtii ka sheegay amba mustaqbal kalo kun noogu dhigi jiray waa iska madadaalay baanay wax rodan noo meesha sheegay sidaas qodobka koowaad marka laga dhigo waad noogtahay sida ugu tiri kareen ama ugu dhaqmaa inuu ahaan madaxbanaan inaad tahay wadan madaxbanaan inaad tahay lana sabab kuma madaxbanaanaysa marka lagu ilaalinayo oo ciidan adiga Soomaali adiga ku ilaalisa aysan jirin oo deeqdana lagu siinayo sidoo madaxbanaanaysa oo ku walaalaha ahaa xitaa adan shir ugu yeeri karin oo dhigi karin aan wadaymaan halka shir markaad arkayso iyagoo isku yimid waa mar amar la soo siiyay ama mar shirarkan waaweyn oo soo socda sidii hadda oo kaleeto sida doctor September toddobaadka labaad ee September وشركي واحد عالي أو جنرال أسمبلي وشركي وين إنجليز ولا بدنا على ريبوري طبعا يعني ريبورتي هذا أنا وحي كسوق أقسام المعيشة إني أنا ما كان وين شيء بدي كل شيء سيراكين سيراني كل شيء وأشوف يعني وأول أربعين أنا جمع تفسير جيد معنا اتكسرنا صحيحا كرما يعني حالي مشروعا أبو كرو قلبكاس رأله قلبكاس أوصل نقنايا مركا سأل لسعوتي meesha joogtay American football ka ama basketball ka ama ciyaaraha xataa Europe kubadda cagta markii qof ciyaartooy dhinto kooxaha kale xataa aan ciyaartooyda ka tirsanayn garoonka qofka lagu xusaa oo la yiraahdo hebel baa dhintay waa loo istaagaa daqiiqad shirkii hadda aduu muku aragtay iyagoo ka hadlaya arrintii xasuuqa ka socda Soomaali galbeed taas waa mid tan kale 10 kun oo qof oo tagay shirka oo Soomaali iska soconaysa diblomaasi ba ahayd يعني بروتوكول حمد ماشي كي ياعي دمر كده ياعي يقول سويرتا مركا أدو واجد شوكتي مساسا مركا مدحضو ينيت ما دودت كسيدح ياعي تري محا مركا حاكا قد سومالي ذا شعبي ودولد أما و exactly أنت هذا كلها مفرعات كاسان مدح الوطن الوضع ولا أيضا مركا كل يوم بريمان مدح يجين ودقيقة خاصية أما الله اسمه الموضوع يصير كاسوك الجوجة runtii yani madaxweynaha Soomaaliya ama ka soo bilow xataa shaqadii bakadada Xasan Sheekh Maxamuud mid gaar ah ma aha Soomaaliya kaliya inta ka horreysay dawlad ma baxay dareemaan ama yani umuuqdaan dad madax oo wadan مثلا waa marka kursiga oo UN
هريالو أروح تجولة لكن حقيقة الدولة متي إن مركز كل تاسك وحكوسه حاجة أنا وحواي شراء كان يوبحها وقتي نيروبي تجي في مريتين في يوروب تجي كل جود هتلا لما كلوا ما دو مدن مدحوينه oo soo taasiyo xafladii oo jaariyad sameeyay waaba intaas mashakil intaas ku egta marka hadda dhageysato qofkii wuxuu ku sheegay markuu yani ka hadlo maxaa way visionkiisa aragtida fog leeyahay qof shakhsigaas ama waxa weyn uu rabo inuu wadankiisa u qabto maxay waxaad arkaysaa badanaa waxay ka hadlayaan argagixisaan la dirirayna Soomaali argagixisaan loo dirirayna la dirirayna suma qabsanin wadankan uma burburin argagixisaan bartee dadkina kuma kala fogaayeen because argagixisaan meesha dhexdeeda argagixisaan waa ajenda qofkii markaas meesha joogay kale dowladihii kale shisheeye ayaa wadata kulliga argagixisaan laga hadlin amniga waa wax weyn oo muhiim ah oo loo baahan yahay in laga hadlo لكن it should not be your top agenda. سببته وحواي وصومالي ما أنتم حكينا في أرنا كلا تو بدنا جرا إن في كهبط ده كان مثلا سامين إنه ولا لا يسوي بيسند هيك كهبط هذه أجندة ديفرنت كره هذه نقطة في وحى كلا ولي ما نقف أمر إن السوسي وماش ونوح كل عدنا دجالان قالنا دجال الجيش كتبت جبينه فم سوهر إن أذكر يعني حيالان ليا برونتي يعني عن كل دليل جري أن شريف شرح أحمد حسن شرح محمود وكذا اللي فرماجو يونيفورم تاني بيالا قرينا إن هوري كسر لبستينه ويجوا يجين بدان حتى مسرحي وحبط الديار وهم وحضر على الديار وهم أنا عبد الله فرماجو هيكو قاعدة مرينا لو بنود من ما قام واحد مدتير لابد كانوا هيكو قاعدة إن سفر يعني أسيقنا وحلا إصلاحها وحنا دونا قصة الدجيو وكفاية استشعارية وين تاجرنا وين وبدك سيان أو فمعدي كذا وقتها إنه كفاية استفنتي يعني أو دراسة معلية وإحنا نقدر نبه مثلا هذا ولا لا نهاية عن شدنا إن أفضل ولا وحي وتشفنا يعني مثلا نيسك للصوصة ولهلا قابو transitional justice مثل كلا كلا يعني بدك وحكم مكانها لو كلا درنا قدر في موت إن في وطن بلا مصنع إنه شيء كذا دم وحي نقطة إن وحنا درينا جماعة ما كاري ما حد كذا بدون تاكوكا واحد شيء يسوونه وحي ووسو آخرين حال مدة عمودة أنت بنقول governance دقيسو زير مالي دقيسو وحي لوسو آخرين ومثلا أنا ديمها يبغيس ديمها جانا لقعتنا وقبل صوم الله وكذا وحي أصلا كل جسمه يستوى أنا هذا يعني احترامه وفهمتنا واحترتي لكن وحن كولا على سبيل المثال يعني مثال هنا أصوات على الأمر مدحوينين نسلوك برايم منستر كان خير الله سيوا من المشروع كلا تيجو كان فعلا قصرت وهي دوا مشاريع يعني الأسبوع نفسي ومدحوينها ومجع وكان كهذا أرندان وهذا قلب يعني وأبسلوت وقلب يعني الحساب تنكي سيدا فرن إن الله الشقيين مثل سوف كورتدي سي أفكوا ولا قلي لكن هذه نفس اللي قبل تجا سؤال بدل إني ما دام وملاحظ يعني حتى محاكي يعني يكون حرماني يجي الشقيستان أما يجي الشقيان إن هنتني تيسك يعني وحياة بدل إني سويدي وحدي كلا تذكية ما كان محلو آخرنا يعني لو جيلين أنا لكن وحنا درنا يعني مصر حقيقة نقط كستغل نورا كده يعني في الجيل يعني dadka macna mashaariic kale uu kala fulinayo marka ilaahay taasaan waafajiyay kulay taasaan arkaa waa tahay aad baa u maasanta daawadayaal waxaan u galeynaa qaybtii labaad waa showgii gaar haye oo idin kaga imaanaya stuudiyaha magaalada London waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Cabdulwaaxid Cabdullaahi Khaliif waxa isku soo dabariday al-ustaad Muxyidiin Diiriye Nuur Wadani oo Canada jooga gaar haye waa golahaas gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dawladda guna kama qaadan oo mucaaradkana gacan saar lama lihin cid gooni ahna uma adeegno fakirka waa lagu kala gedsinaan karaa laakiin danta guud waa sidii guujiis Allah u naxariistay u lahaa aan ku garawnay gaar hayow gayiga ilaali
سايدين كبلن قادني waxa idin keenaa labeenta Soomaalida oo culummadii iyo aqoon-yahanadii kale dhaqaatiirtii hal abuuradii iyo hogaladii dadweynihii oo dumar iyo rag leh marka isgaarsiya shargareeya linkigaas qofkii aan ku taxnayn gaar haye saad u heshid ogeysiis toos ah ku dhufo marka qaybtii labaad baan u galaynaa mudane Abukar adigu diblomaasi hore aad ahayd mar aad dawladda Shariif wadaad Mareykan u joogtay dad baa kula soo xiriiray aan la garanayn oo leh yani ciidan baa idin dhisaynaa isbitaalaan dhisaynaa barwaaqa idin gaarsiinaynaa waxana idin kama rabno marka tiri waa la soo tashanayaa waa tay ka kala carareen dadkaas awal qaar Puntland waa joogeen hadda laakiin koonfurtii Soomaaliya ayaga xamar iyo meelo badan iyo xalana buuxa dadkaas in badan oo ka dambeysay Imaaraadka Carabta ka dambeeya siyaasiyiinta Soomaalida waxa ku sheegtay shaxbad tusaale u soo qaadatay shaxdaas marka dhagxaantaad ku sheegtay madaxda Soomaalida laba qof iskuma khilaafayso dad Soomaaliya oo aqli leh arrinta Soomaalida madaxdu waa saas laakiin Imaaraadka marka loo eego beesha caalamka iyo shirki shaloo kale iyo Mareykan ma kuwa shaxda cayaarayay bay soo galayaan mise tusaalaha kaliya waxaad u dan lahayd Soomaalida mise Imaaraadku marka Mareykan iyo beesha caalamka Yurub midowga Yurub loo eego waxay noqonayaan dad cayaarta ka warqaba sida wiilasha dadka golofka cayaaraya u qaada yani boorsooyinka iyo mise waxaad leedahay Imaaraadku hadda sida midowga Yurub iyo Mareykanka bay arrinta Soomaaliya ay lug fiican ku leeyihiin oo wax qaban kara ku soo dhawow waa su'aal aad u fiican labadaba waa yihiin shaxdin wax ka og waa yihiin kuwa iyagana dhagxaantaas ka mid ah waa yihiin maxaan ugala jeedaa marka haddaad dib u fiiriso waqtiga uu soo bilowday runtii cilaaqada ay maanta Imaaraadka la leedahay kuwa caloosha shaqaystayaasha aad wuxuu usoo marka hore wuxuu soo bilowday 1911 iyo wixii ka dambeeyay dacladii ka dhacday Mareykanka saad ogtahay iyo dagaalkii mataqaanaa Afghanistan iyo markii dambena Ciraaq lagu qaaday saad ogtahay saldhig weyn qoladan biyaha madow loo yaqaan ama Black Water saldhigooda weynaa waa saad ogtahay waa Imaaraadka waay cilaaqo hoose oo really aad u adag oo u ballaaran waxay la yeesheen shuyuukhda meesha joogtay mid si gaar ah u ahaa ayadaasna marka waxa lagu akhrinayo waxay ahayd war adinka waad magan galaysaa yani dhibaatooyinkan iyo waxba kama soo gaarayo meeshan waa meel oo u ah saldhig Imaaraadka macnaha ha noqoto Iiraaniyiinta badnaada oo meesha deganeed ha noqoto Carabiyada badnaada meesha tumashada isaga imaanayo marba qof oo mataqaana blackmail wixii loo yaqiinay lagu samayn karo marka waxyaalo laga duubo ama video ama hadhow isagaas loo adeegsado sida maanta madaxweynaha Mareykanka oo kale labiya waa laga hayaa marka qaabka waxyaalahaas oo dhan ku tala jireen in sameeyaan hal sababna waxay ahayd caloosha shaqaystayaasha iyaga ka faa'iideysta waxyaalahaas midna waxay ahayd Mareykankii oo markaas riixay dowladii ugu quwadda badnayd dunida awoodda oo markaas loo arkay dowlad caraysan oo dib soo gaaray waxa ay yiraahdeen in loo fuliyo laga hortagi karo kuwan marka way ogolaadeen waxyaalo badan ay ogolaadeen sida ogtahay xoog marka waxa la saaray sidii loo abuuri lahaa qaab oo adduunkana geopolitics waxa loo yaqaano looga siyaasadeedka adduunkana saameyn xoog leh si loogu yeesho iyadoo musawir dhaqaale dadka la hordhigayo musawirka dhaqaalana waa marka nimankan hadda ku sheegay gaalayda ama walaalaheen Imaaraatiga oo qof walba arko dhaha macnaha dadkan waa lacagtina way hayaan maskaxdina way hayaan businesskina waa hayaan maxaa ku jaban marka macnaha haddaan xiriir la samaysan meelo badan ay marka adduunka sidii oo kaleeto uga furan awal buu jireen laakiin laba shay qoro haddii la isku darayo cidda leh xataa yani aad u qarsoon tahay shan maxamed aan malaynayo inuu ku qoran yahay
laakiin tafaasiil badan oo aad research ka samayn kartid iskale iyo inta maalgashi ku samaysay maalgashiga noocaas oo kale markuu adduunka yahay waad ogtahay waa ka talgaari kartaa sida dowladaha ama shakhsiyaadka maalgashiga ku sameeya tan maya kama talgaari kartid waxaas oo dhan mana heli kartid macluumaad arrimahaas ku saabsan marka mid waa taas oo quwadihii waaweynaa oo juqraafi siyaasadeedka adeegsanay juqraafi siyaasadeedkan haddaan wax yar fasiro waa ka duwan tahay siyaasadda caadiga ah oo aan inteena badan aan iskula dhaqanno ama boos yar oo lagu tartamaayo ama gobollo oo taariikh wadaago oo deegaan wadaago oo ishaystay xuduudana isku haystay waxaas way ka duwan tahay badanaa waxaa adeegsada dowladaha waaweyn inkastoo dowlado yaryar oo mataqaanaa ay kala qaybgali karaan iyagana laakiin badanaa waxaa adeegsada dowladaha waaweyn iyo kuwa ku daydo sida etoobiya oo kaleeto etoobiya hadda waa geemkaas way soo gashay iyagoo ku dayanaya yani dowladihii waaweyn iyagana laakiin waxay ku egyihiin waa regionka iyadana waa guda gali doonaa insha allahu tacaala marka juqraafi siyaasadeedkaas waxaa loo adeegsadaa marna waa amni oo rabo in dowladda mataqaanaa dadka kale oo ay tartanka kula jirto quwadaha kale oo ay tartanka kula jirto inay jartaas ka hordegto si amnigeeda iyada u fiicnaado qolada kaleetana wixii laga qabsi karaa laga qabsano sidii waagi misaal yar haddii aan soo qaadano soomaaliya oo kaleeto waagii oo ruushkii iyo itixaadii soviyeeti markuu jiray iyo maraykanka labada quwada waaweynaa ama nato iyo warsay jireen iyaas tartanka waa jiray annagana yani waxaan ahaan kolleyto jartaas meelaan kasoo geli jirnay laakiin wax badanaa noo kala baxsanaa marka qaarkoodna waxaad moodaa jartaba inaan annaga naftirkeena xitaa madaxdeenan ka wadaan xamsiyaad bare waraagaas madaxweynaha ahaa qayb ka ciyaaraya marna faras koraay marna laba faras wada saarnaa inkastoo taasna ay dhibkeeda leedahay hadda ka horna aan ka hadlay iyadana laakiin waa wax soo jireen sababtaan usoo warqaadaya waxa waa inaan ku iraa waxaan hadda ma bilaaban hadda laakiin tii weegaas jirtay waa ka boqol jibaaran tahay waa kasii khatarsan tahay waa kasii ballaaran tahay markaad arkaysid imaaraadka oo dhex fadhiyo yemen oo ciidan yemen u joogo oo runtii yani foot soldiers oo maanta yemen joogo foot soldier ma joogo ciidan dhulka ma u joogo meesha laakiin imaaraadka u joogaan waa qolo lasoo train gareey calooshooda shaqaystayaashaas ay soo train gareeyaan mataqaanaa meelaha qaarkood oo loo soo cayinaya qabsanaa iyaga marka waxay u joogaan waa laba shay sidaan ku eri marna iyagaa lagu ciyaaraa marna iyagaa ciyaara mid waayo oo tii oo regionalka ah midii sacuudiya danta u ahayd midii aan iska dhicina iiraan dadii ahayd inay taas fuliyaan kow midda kalena waa dantii iyaga ka weyneed oo iyaga dhagxaanta ay u ahaayeen oo ahayd macnaha quwadihii ka waaweynaan inay waxay sabeen u fuliyaan waxaa ka mid ah suuqadra oo kaleeta ciidanka oo mataqaanaa imaaraadka oo dhex fadhi way jasiirad badi ku dhex taalo badi mataqaanaa indian oceanka ku dhex taalo mataqaanaa oo haddana cafwan maxaa la yidhahaa ciidankii oo imaaraadkana oo meesha dhex fadhiyo dalna kama laha mana ka yeelan karaa because throughout haddaad ogtahay taariikhda weligeed waxaad isku haysata markii oo cadan ama yamanta koonfureed ay shuuciga ahaayeen ruushka meesha dhex fadhiyo haddaa xasuusato ka dambena maraykanka u ahaa wax dhex fadhiya ilaa iyo hadda dagaaladan waxaan ka dhaceen markay xoogaan ay ka baqeenin oo sabotage waxaas lagu sameeya ama waxan lagu soo tuuray xoogaa dib u gurasha sameeya marka ciidankaas waxaa loo adeegsanayaa inay libaaxii wax usoo dhiciyaan ana oo iyaga maaha maslaxadooda uma socdaan maslaxadaas ka weynay u socdaan aan kaa dhexgale su-aal la xiriirtaan waa ku darsan kartaa su-aal la xiriirtaan tan ku weydiinaya arrimahan waraysi hore mar aa uga hadlaysay arrimahan laftigooda waxaad sheegtay alla yaabanayd oo dadka la qaybsanaysay waxa imiraadku ay 5 dekadood ku falayaan hal mar marka
maalmo kadib markaasaa tahayd abi axmed baa xamar yimid waa tii afar dekedood la saxiixday marka adigu ma waxbaad akhrisay oo arrintan la socotay mise waa taxliilkaaga siyaasiga meesha kula galay kusoo dhowow يعني وتحليل كي سياسي وما أفرين إنه بنا عاصف صعبا لكن وحنا نسكمه because يعني سيري وحنا نحبوين ومضانا هدي عاطفة قبيلة مدان وشخصي عابد كه وهكذا ماشي وجرى صاحب كي وجرى هذا شيء وجرى هدي تاسمين على الإسكادي ونفسي يمكن يفكت وحنا شكل بعد عدوين كبعاي يصير يسكو وضع بشيغان تاريخ من دعان بوقت دعان يوك شخصيات كماشا كجرى دولة كجرى مركز في الشيء مصور أقول صباح حكت تفكير يعني أدبع وصل ليسنت وهذول الدبعية سيتي مثلا إسقاط سيسي وحقول صباح يصور أقول صباح صور واحد كرسين ومن الجاري ستعرف جدا هدي فاستحي ولما عملت منقطع ليس سياسة الوشية غير ومعاملة ولا الدولة دول مثلا بنتورة مثلا كوضع شقينا تاسمين ملح لأن هذه مصور فورحا وصوبحا وأرنت يعني وأنا تعرفت أنا بنت أنا سبعة بأننا مخربة أنا وشركوش حد يرساني كده حمل أفرانتا في بربرنا وأفرانتا في جبوتنا وأفرانتا بدها مركز أركت موحد أركتها بدو مراكيب تستبت تاجيني وبدأوين كدون كديس إني كوّا كيانين وذا سفنين ومن لا بيكتلوا لا يعني مراكيب تموت وصفق الوجه رديد الكيس يعني بلوين اسكفدنا ماشي ما دركتها ما أرجع محاصرة مركز ده سؤال شو حين نقولي في حديث انتهى تجري مركز إن كانوا دخلوا وحال مرة لو ضفروا لما البدينة إن من نكون كرتو because of جناحي because جناحي إنه عسيتي إبن مكجرة وبداشي ممكن and ماشي هو overcrowded oversaturated as it is in service كأهم كهلا بريء الله كبر بقاله وكبر الله نجاش ومرة من الفرد وانا ولي دونا كنا تنكلا كان سنة كنا نارجلينه مركي واحد قاطعنا دولة بيده كفاية ستو ولي لما تشتني كفاية ستان مثل أنفر ومعقول لكن كونتراد نوع السوق لما كوفكا ودبر جديد إنه وقتها سنوحي جناحي إن الشيء كذا هنا جناحي والشيء أدو يقول جناحي وأدان لسين بترين marka qofkii siyaasiga ahaayo tuulada si caalamka ka sirtay oo dawlad goboleed iyo wuxuu doonaa isku bixiya dadka ka helay ama ballanqaadi ka helay inay taageerayaan inuusan weli iska degin xilkii waxyaalo saas oo kale badanayaan u adeegsadaan saad ogtahay qofkaas maxaa ka galay macnaha haddii meesha la maalgelinayo aniga mustaqbalka say noqonayso iyo خطرتي ودنتي وكان كرتي دوكان ديغان كان دغنا وكان كرتي حاسد الغف كاسي تي وكبر السري وكسي دقائق وأبي شيء إنه لبس سنة كلا 7 سنة كلا ما 4 سنة كلا ونمسك جوجايا دور قولي كدستو أنت صبابور ما تكاركي في ملكي يعني بعض الشيء لو رفعي كعيني في ملكي أنت اسمه هذا شيء هذا مو أنت marka hadii taxliilka uu ku ekaado afkaar noocaas oo kaleeta iyo qaab fikireed noocaas oo kaleeta dhanaan loo socono kullitii markay isaga dayanayaan laakiin way ka weyn tahay arrinta ganacsiga way ka weyn tahay Ethiopia roadka ay ku leedahay markaad aad fiirisid waa meel dhaxan uga tagna xasuusitay laakiin su'aashaadana ka dhigto Ethiopia marna iyada dhagaxii oo kaleeta oo yani ganacsi oo weyn ku leeyso marna waa mid geemkii wax ka ciyaaraya oo yani markii geeska Afrika laga hadlayo hadda waxay xalaaleysatay sad ogtahay berbera diilkeeda berbera tagaali u tan boqolkiiba qaadanaysa ayadoon meesha maalgelin ku sameeyeen waxna ku leeyahay dhulkii loona baahneen haddii reality labadan qolo wada hadlaayeen ay rabeen inay diil galaan looma baahneen wallahi diilkii waxa loo yaqaan marka qof kale oo saasoo kale ajoogis carqalado marna ay keeni karaan soo badan waaba laga ilaaliyaa businessyada dad noocaas oo kaleete laakiin waa ku dhex jira sidoo kale afartan kaleetana marka ku dhex jira
kuwii hore 19 la dacaayadayna lahaa waa too much lacag badan ay ku qaataan oo maalin la'aan ay ku qaataan adiga waxaad sugtaa ilaa ka soo baxaan afartan kale iyo Ethiopia ay ku yeelan doontaa 20% labaatan 30 maybe 40% 50 waxay ku yeelan doontaa Allah aniga ma ogaadnimo laakiin waxaan qiyaasaynaa waxa waaye in ka badnaan doonto aad uga badnaan doonto tii Somaliland Somaliland cilaaqadooda markaad fiirisid xoogaa yar waxa jiray some kind of relation siyaasadeed oo ka weyn markaad fiiriso siyaasadeed oo Ethiopia ahaan markaad fiiriso ay Puntland la leedahay ama Jubaland la leedahay ama galmudug la leedahay ama South West la leedahay ama Shabeelle la leedahay iyo banaadir oo soo socotay marka nidaaligan ku leeyahay 19 ka heleen dhinacan kale kana wax ka badan ka helaan marka Ethiopia marka maxaa ku soo dhacay intaad noo socotaa keena baayahan iyo dekedahan iyadoo wada maxaa dhib oo wadanka ka soo gaari doona basita dadkan maanta gacanta u gelinay ma noqon doonaan badan ka soo dhacsan karan oo tabaxi ma leenahay mise 10 sano kadib 5 sano kadib maanta intaan taagana waxa la siyaasadeed oo aan taagana awoodda siyaasadeed maanta leenahay mid ka sii liidata yaan lahaan doonaa moogta taasayna u badan tahay ana hadda waxa kaliya oo barawaad loo socotaa imaadan weydiin laakiin waa ku xiraaya sheekadan insha Allah ayaanti dhexdaas waa loo socotaa markii gobolka banaadir iyo la dhisay waxaas oo kale ay isku controversy ka dhacay moogta isku qabsaday waa xasuusataa ay isbedelna sababay nimankan hadda markabkii weynaana daadka ku sheegaan beesha caalamka ugu yara maxalada ugu yara magaalada waa isla magacadii tumi waxba isma dhaama ama ansom ugu yara kuwaas waxaa ka go'an inay banaadirland mid lagu dhamaystirayo wadanka uu noqdo markay taas dhacdana waa yani gobolkaasi iyo ninkii koonfurta usoo xirtay meesha madaxweynaha ama madaxyaraha ka ahaa inay la diilgareeyaan jidkiisa la siiyo saasna danahooda ku fulisaan halka sababo marka ay gadaal isugu dhigayaan waxa waaye nimankii maanta meesha joogaya mashruucooda fulin wahay anaa madaxdii federaalka ama mashruucii weynaa fulin wahay haddii banaadirland maanta uu soo baxo ama gobolka banaadir oo gudoomiyaha gobolka banaadir oo maanta madaxweyne noqdo dan waxaad haysatid waa lix madaxweyne federaal intaad ka soo gashaa marka federaal intaad ka soo gashaa kuwaasaa toos loola dhaqmaya sooma taas way imaanaysaa يعني sida muuqato ilaaha sidii wax ku dhamaan doonaan anaga moogin qiyaasteenan ka hadlayna anaga daahirkaan fiirsanaa saadodkahay aan cabir ka samaynaa si biniaadan aan caalim loo eegman ilaahay subxaana watacaala wax kasta sidii ku dhamaanaa marka taas waxaan rabaa inaan hoosta ka xariir laakiin waxaan kusoo noqonaa saasay u badan tahay inay noqonayso goormay noqonaysaa marka la helo madax oo shaki ka qabaan inay howlahooda fulinayaan iyo in kaleeto dan waxay noqonaysaa tashwiishkii lagu soo furayo wuxuu noqonaya banaadir inuu gobol noqdo sheekada waa dhamaatay dan marka wadan matiyid waxaa tahay waa fiefdoms clanstans ama waxaad rabta ugu yeerno taasna waxa waaye part of the plan hadda muddo keliya dib tareenada u qabato waxay ahayd bas nimankaana already guuleynaayo oo gaardinayo jihada loo jeediyo sii wada moogta dadkina ay weli aaminsan yihiin inay wax bedelayaan ama isbedelba ay wadaan marka xaqiiqada taas waa tahay aad baa u mahadsan tahay arrin la xiriirta midaan baan kusii daraynaa intaanaan qodobka kale u gelin Djibouti asagu wuxuu sheegtaa inuu Soomaaliya wuxuu qabtay waagii carta af Soomaaligan isu keena laakiin waxaa muuqata inuu la kala saftay waqooyigii dariska lahaa asagoo geeska gelinaya koonfur buu la xirtay waxaana moodaa inuu raalli ka ahayn in Soomaaliya degto Eritreana dekedaheeda la isticmaalo go'doonkaasuu la rabaa marka hadda arrintan abi hadda Eritrea iyo dekedahan markii la eego yani Djibouti xaaladeedu see noqonaysaa wallahi Djibouti waxaad moodaa runtii yani midaan laba siyaasad waaye midaan geopolitics markaan fiirintii warar siyaasadeed
waxaan isleeyahay Djibouti iyadaa saabo ah intooda kalaba dhaanta oo position fiican taagan aan isleeyahay sababtaan u leeyahay wax kale maaha Djibouti iyo Ethiopia by the way marna waa isla jiraan marna waxay u muuqataa inay kala jiraan hadda maadaama cilaaqadii oo Eritrea iyo Ethiopia soo fiicnaatay shan daqiiqo lagu wada xidhiyo wixii oo dhan taasna waa sheeko kale oo marida ma ka hadli doono laakiin hadda dadku waxay ugu muuqataa macnaha in oo cilaaqadaas cusub oo meesha ka dhalatay inay xusulayn doonto Djibouti aniga ma qabo ma u arka taas in Djibouti علاقة في عن وحي رجل لابد أقول وينام كمل وإذا ما أنت تقع في سياسات وكتر سنة وعشاني مريض كوسادة أيضا هذا هو حد يستطيع إن مالدين هذا ما بشي سنة من سواد وقتها China إن وصلت إن DPW كسر DP World كسر إن وحياها نودن Djibouti سائل عمر بين ما إنه صوته سمعين وحنا وحنا وجهان كلا كتب الإسلام هذا إنه عدها because of the one والله صوت عليه سو شعب حي إنه مالقين هذول China سمعين سمرحني تاجيت كافيتي لبود عزوم يساعدوه إن مركز إذا إثيوبيا إيو China هذه يعني وحدة دراسة علمية سلوكها إن China بشدار فيه محلها إثيوبيا قاسم سلكة سلوكها وحتى تصفونه أمريكا لا يلا بكون يتسجل محاد عمرك هذا الحسوس الصومالي بالبيضة إن أولا لفت وقت أتاكر يسي إن كوا أو شينيس أو نقولي إن هولا هسكو جرمانا شدالك بعد تانكيسي ودي تانكيسي وحسكو شغله طبعا يوحي عن محسوسته مركاسا لن كوي دلي مركاسا all of a sudden مريكا نحب العابي إنه مقالة دي أفكاكورا دا حسوس نيويورك تايمز فيديوي لوغا هدلاي oo NLF waa halka soo jiray 40 sano waxa dhan wuxuu ahaa macnaha China iyaga haysto basically inkaan markay China nalki ku shideen oo qofoodna ka digay 10 senator oo Mareykan ah 2009 waxay saxiixday warqad ay ku cambaareen Ethiopia leedahay mucaawanaadkii laga jaro وحلو مريكا مركز علاقة أبو جنة اللي يكتب وصدقون كي وحاسي ما الجديد كلا كلا سمعها لكن كون وحيدا ما موضوع عن كرنو because هذي هذي نوع أنا كلا China اللي إذا China أفريقيا ده اللي هنيستا إيه أصلا متقنا جالي لقي سوبرا ما جيت لقي سوبرا يجاوي so therefore أنا مصي مصروف كمان هلا بجاوي لكن ده تاسس في السنة واي Ethiopia like anaga aadi noogu horeysa marka laga hadlayo siyaasadda jaskan waataan ku irmadna iyaga lagu dhiigayo dad wax kale u fudinayaan marna iyaga mataqaanaa jarkii mataqaanaa booskii rabaan ka dega ayagana marka Mareykan marka waxay hordhigeen keeradkay Mareykanka hordhigeen wuxuu ahaa South Sudan marka heshiiska hoose oo qabsanaya wuxuu ahaa South Sudan beriga ay goobo إن مثلاً China وسنسوف رجلين مريكان لوتر كلها في كل أشياء العالم إن تينو ويس يعني وكل دنيا كنت بسمعين لكن هي هاد حالها عمر البشير مركو يشيف كل جلا يكوي سات السودان وغير أنا وقاعدني سامحين لكن قاعدتي حالها شدار كمان شو مرة عدة كشغلين يصير شغل كل ما يجي لكن وضع الحالة ده هاني سان غير كذي إنك معمولنا لكن الشيء ده أنا إنك ودني وإحنا كم بدري كرتان ونقول كلنا دكتور تشويش الغفري مثلاً كلين جيس سجى ضياع بحث هذا هدفتان ما نقص يلا شيء فينيس إذا تشيس كده وصالد نقول عبر مريكان China وقول هذا عدة شغالة في لنا يصير كونترادي ده في لنا يصير برجع صدق كده ما أنا صون نقول مرة في
Djibouti marka waxaan ku yiri cilaaqa noocaas waxay la leedahay China waxay la leedahay Ethiopia waxay sameynaysaa marka waxa waa sheekadii aan hadda ku sheegay oo bari toddobaadkii iyo Soomaaliya midii ku jirtay oo heer labadii farafin oo saarnaa laba farafin saaranta xaqasteeda leedahay madaxdeen haddii ay fahansan yihiin dartaas mar hore keena noo degi lahaayeen ee laan anaga saanaan uga faa'iideysanayna laakiin iyagana waxay ku indhasarcaadan yihiin waxa waaye dhaqaalihi aad isku furaya dowladda Ethiopia waa maasha Allah tabarakallah albaabada aan isku furan xuduudda aan isku furanno kulligeen waa wada macaashayna kulligeen waa wada dhargeyna marka sheekan noocaas aan soo dogtahay brian oo walaaleyna marka Djibouti saan ku iri in the long term maybe in the short term in xoogaa degyar la kulmaan waa dhici kartaa laakiin in the long term marka mustaqbalka fog baad fiiriso ayagaasaan waxaan isleeyahay position fiican taagan hadda istaagay oo cadaystay waxa ay rabaan kuwa kale weli waa galab leeyaan ayaga laakiin waxay yiraahdeen annaga go'aankaan gaarnay cidaanan wax darsanayna hal isku ixtiraamo marka dowladaha waaweyn markay saasoo kala dhacdo oo cadaysatay adiga dhinaca jirtad waa la isku ixtiraamo dowladii aad adigana la taqaanaa quwadda noocaas oo jawaabi siyaasadeed quwadda noocaas aad siisayna ama aad ka kaalmaysay dad iyagaasna waa ku hadlayaan waa ku taageerayaan oo yani representative yani ku noqonaan marka waxaan isleeyahay Djibouti waxay haystaa maanta qof u hadlo oo clear u haysto inay iyaga dhinacooda martay China waa dadka dhaqaalaha waa kobcaysaa military ahaan waa kobcaysaa حدان يعني هرلو أرسل الدين كسر marka nidaamkan kuule iyagaas waa meeqa dhaamaan kuwa kala wadan annaga laakiin weli filimkii raaya dadka u shiday oo ahaa yani madani yarada naan waxaan dadkan isku haystaan saaro u eriyaan waxyar yar isku haystaan wixii waa weynaan ku luusgarayaan mar waa kuweenan ka hadla iyo ku dar walaalahan Soomaaliland anima kala saaray inay si qoso kala go'aan oo lagu faahfaahaysan inta kala waxaan haystaa in dadweyne isku soo jeedinayeen walaalaha oo dib kala soo gaaray waa in xaqna laga hadlaa dadka dadkiisa waa in la qiraa halkay qaran ahaan waana ka hadlay waana qoray hadda dooran oo ka hadlay arrinkaasi marka saasaan u arkaa kolleejka kale ilaahay say ku dhanaan waa tahay aad baa u mahadsan tahay daawadayaal waxaan galnay qaybtii ugu dambeysay waa showgii gaar haye oo idinkaga imaanaya istuudiyahayaga magaalada London waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Cabdullaahi Khaliif waxaa isku soo dabareeday ustaad Muxyidiin Dirin Nuur Wadani oo Canada jooga oo golihii gaar haye oo gacalka Soomaaliyeed gees kasta oo ay adduunka ka joogaan u gudboon yihiin dawladda guna kama qaadano gacan saarna mucaarad kale ma lihin cid gooni ahna kuma xirrin fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa laakiin danta guud waa mid gooriya ayaan gabagabada hadalku waa sidii guujis Allah u naxariistay u lahaa aan ku garownee gaar hayow geyiga ilaali caaw waxaan yahaynaa gaar hayo weynaa Abukar Carmaan oo dajirihii Mareykan noo fadhiyay waagi dawladda Shariif weeye marka isgaarsiiya la wadaaga walaalaha kale Abukar danjire saan la socotid hadda ogaadeen ama Soomaali galbeed waxa ka socda oxymoron waxaan tiraadaan luqadaha qalaad muddadan xasuuq baa ka socday oo hadda si laba kacleeyay dhinaca kalena xorriyad markuu ninkan hadda isbedelka la yimid ra'iisul wasaaraha cusub Abi Ahmed marka sidee marka xasuuqaasna loo joojin karaa arrimahan hadda dadka xorriyadda helay xabsigii jeel ogaadeen oo kale laga soo baxay marka bal see arrimahan marka looga faa'iideysan karaa kala duwan oo iska soo horjeeda بدلكان أو وجيب بدل الليل وتوجي كداعي صادق تحبه متكي أو geopolitical كلام جواب السياسة الإسلامية كان هذا كلام يمدو في الليل هاي أو internal أو دكتورة دقاء ولا لها هاي يقولون كلا جاري سنقطي فاتري إن ما في واحد حلنا أنا بدنا يعني بدنا مرور بروح فيها إن واحد اللي عندك كان إنه لو في أرتكل واسيب كل واحد وده وين كروه
سادوكتها بكعلونا وحكدا إثيوبيا أنا صوغ قابنا تاريخ واسكا ديارتها لكن إنت فقط ديارتها لكن بدان قابنا هذه تونا يعني كعلون لو غتسو برجي حكم في متغنى يعني تقرأيها يعني وانت يعني لبقوا ميضاءات وكعضي سادوكتها يعني لبقوا ميضاء نحي كلاها يعني حاردي ورمضة هو بناته إن تقرأينا سادوكتها هو ملك يعني إن صرعات كيسيا وحكم لها وصومالي لنا لوكا لجدنا جارهان أو أنا لفنيو هل بين كده كسوج لنا لوكا لجدي خيها مع الجنينتي لو سمي كنيجشنات سادوكتها مثلا مدحوين نرنتي وهانين أو داعد هو أرنتان أو حالها قاب سياساتكو ملزنا وسوء الدنيا الجري وهذا كمرنا لك لقطه مرنا ملح لقى جراها إن مثلا مرنا لحسوقه مرنا حبسي لقى بوحي سيسن كنوع صحة بدو وأدي بوحنا إن سيدوكتها جاي وبعدين كمد يعني واحد كان نحط ورنتي هي ربنا حقوق الإنسان صاحب له تي باللي صباح النقطة إن Human Rights Watch report وين كسامة سيساوكتها إن مركب بريها سوحة جسد مركب الوقوع عيد تقدر حكم كي تقدر إن هلك صاحبه يكشفنا ين وطبعاً بدنا السوسيين ولين من نحيا وانتي يعني ولا لي زمان نحيا نسكتها وميرا كلاته يقول هاي الماشى إن ومثلا دمشق هيستعد محمود عمر إن يقول ذي السنة لكن لو عبروا مثلا لو حسوق لعب سيسي لو أرجعيه لو حبيس أنت لحد سكرين تبدي ترى يعني مركا سجاس ودكتور هاي من بوليس وميليشيان وسجاس تكامل قاعدة وأدبريان ورهاي من أول بابين دون إن كلا ديرد من كلاته يعني المحكمة عندهم قارئ كمل سجن كميدي هاي إن مركا قوة سيفنتي يعني وادي سنة سيكو فلتا يسيو بلاس ستة وداسون يسعدوا عن وصول جنبين هذا اللي هو يسمينا مركا كان رمضان يعني دلوقتي بيستي كي مركا وحيد على السيد مركا تكفرتات إن دتخي يعني إن اللي عامل مركا يعني ووريد يعني اسمه ووريد هذيك بلا وطن وحوا ما يعني قصة حاجة كرتبوا مرة مكتوبة واسجلها فروقت هاي مركا إن سومالي دوان حتى كان فاتتي وحنا في مويا على مثله يعني إن وحنا لو أكيد في كلام وقف كستو درين بني هذا اللي نكون تركي سومال لماذا في إسلام لماذا بيتعامل جارين وهذا بني هذا لماذا يابو كودي سبعة يعني وقرأت وحياة فاس وكلام قف بني هذا اللي هو سبعة يعني دبل الدنيا ومرتبط برادين يعني بدوين ولا قدم عشر ولا طول قابل صورها يا قاعد وحياة فاس وكلام كنت أنا أركاد لو إن وأنا كهب لي يعني وحاجة أرنت عن تيجا ما أتكلم كلام وحاجة قصة فحنا مقلة الشلتو لما كان بالتراب ما يقول ما كان إنه أسرع سيدا ودراي يعني كلا صوت حجلا مش سهل مسافة مش سهل أنا ما نسلي تاساس وأفجر يسوي هذا نسلي لكن وحن أنا يرونك يعني أد وفرح سنة بقول عن كهب لي إن جالي لها سومالي ورمو وذدلو قبل من الصوت مينيابوليس أد وجوبني مريسكا سومالي ماشي وجوبني سبب دوتي ومينيابوليس sidoo kalena qaramada Mareykanka joogta ayaga Minneapolis hooyigooda weynaa marka mataqaana community leaders keenay culimada diintii runtii oo labada dhinac ayaa runtii yani waxay soo qaban qaadeen inay wada hadal inay wada kulmaan dadkii wacyigeliyaan yiraahaan wada naga xumaan naga dhaxta dadaa waxaan siyaasad ahaan u adeegsanahay laba qowmiyad oo walaalaan hay diin wadaago مثلا dhaqan ahaan isaga dhow dadka kale
arrintan sidii aan nabadeyntii sidaan uga shaqaynayaan aan uga shaqayn ayagaasna waa u hambalyaynaa runtii yani waa wax muhiime aan rajaynaya inay yurub ka dhacdo inay meel kastoo jaaliyadahan wada joogaan inay ka dhacdo horta lama kala maarmaan marka isbedelkan dhinaciisa daakhiliga ama daris wadaaga waxaan isleeyahay haddii la helo hoggaan fiican oo soomaaliyeed inay xataa kuwa siyaasadda keliya ahaadaan maaha waxay noqon karaan mataqaanaa hogaamiye dhaqameedkay noqon karaan waxay noqon karaan mataqaanaa culimaa diinka in la helo dad oo ka hadla arrinkan wixii sababay oo dadkana mataqaanaa wacyigeliyo labada qoomiye oo wacyigeliyo in arrintan oo kale la adeegsan karo si xunna loo adeegsan karo oo haddii siyaasad ahaan loo adeegsanana dadka maanta jiro mid aad ugaga sii xun inuu dhici karo taasna ciday faa'iido u tahay malaha soomaalina faa'iido maaha oromadana faa'iido waa tahay aad ba u mahadsan tahay waxaan rabnay qayb afraad laakiin waxaad moodaa waktigaaba noo saamaxayn aad buu u dheeraaday waxaan kaa codsanaynaa kule inaad mar kale nooga dhigto laakiin qaybta saddexaad ba waxaan kusoo xirayaa 2 su'aalood oo midna shirkii la xiriirtay midna arrintan hadda tan u horeysa qalbi dhagax xarintiisii madaxweynaha waa istaqaanaan qurbuhu idinla joogay maraykan buu idinla joogay ilaa hadda raaligelin lama hayo oo hadda saad la socotidba case xataa ingiriiskan ka dhacayo nin libyaan ah oo xataa sharci aan haysan oo CIA-da iyo ay afduubeen iyo MI6ka ingiriiska xataa la caawiyey ingiriisku toos ma ahayn ugu dambeyntii sanada kadib oo Gaddafi loo geeyey dowladdii iyo ra'iisul wasaarihii baa raaligelin bixiyey magdhowna waa la siiyey marka madaxweynaha waa taqaanay maxaa ilaa hadda xataa raalli ah xataa ilaa hadda lagama hayo marka ka diblomaasi ahaan maxaad arrintaa ku fasiri kartaa walaalow arrintaas horta waa dembi weyn oo yani fal aan anigana si dad kale oo taxliil siyaasiga sameeyo ama hoggaan ama arrintan soomaaliya uduwaayo aygu yiraaheen taasoo in ay ahayd siyaano qaran inay ahayd in shaksi soomaaliya muwaadin in loo dhiibo cadow maxaa tii diintaba ma galin tii diinta waaba arrin kaloo ka weyn taas marka waxaan ka hadlayna waxa waa tii siyaasadda hadda saaran tii siyaasadda inay muwaadin soomaaliyeed aftaan qof cadowgiisa qole ay og yihiin iyagana ku markhaati fura ay leeyihiin waaba argagixiso qoladaas qolada kalena mar allaala markay shir la fadhiistaan waxaas ku akrin jiray habeenkii maalin oo dhihi jiray inaan la dagaalanka argagixisada inaan ka wada shaqeyno xabashiin taqaanaa marka argagixisada taqaanaa waa oo meel afwa marka waad ogeedbo yani siday u haystaan waad ogeed shaqsigii waxaad ku magacaawday oo nalaf ka mid ahaa oo nalafta waxaad ku magacaawday inay tahay qola argagixisa cadowgiiaad u dhiibtay fiiri ah arrin sahlan ma aha yani kollayta taariikhda way xusi doontaa marar badanna misaal ahaan waa ugu soo noqon doonaa arrinkaanti laakiin soomaali waa short memory dad ahaan noqonay laanna dhacdooyinka dadarshadaanna hadda maanta dad weyn meeshan ka dhasho ka bilowdo ku kaloo xagga aad ka shidaya aniga mashquulinaya macna kii hore waa ilooban October 14 wixii dhacay inta Soomaaliya maanta ka sheekaysanayso dhayso maxaa nagu dhacay maalintii yaa ka dambeeyay ilaa hadda ma jirto waa laga soo tagay bas dhacdooyinkii kale ka dheersanayay maalin waa oral society waddan warku neefsada mujtamaca dhacay taxliil kale ma jiro wadaadii warkaasuna la sheegaa marka tii qalbi dhagax walaalo wax weyn waa yani khalad aad weyn waa أنا الحمد لله رب العالمين إلهي وفجينا مقال الجزيرة كسر بحيان كقول درجة سينا betrayal of Somali محمد عبد الله سواماجو betrayal of Somali people يعني وحو خيانة دمكيسي وخيانة وأنا رد ساسو سبيل مركب وحليات إلى أي ما انتظرني يعني ده مرة كعب لي سين دايركتور إذا أنا وحن قوة فصنعي مثلا سوير ما حسوس برلمان كان عنها رأي جاسان قبل
rayga sideed qabtay su-aasha ku rabtay waxay tahay yaa dhiiban marka haddii dhiiban golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha muxuu ku hoos fadhiyaa ra-iisul wasaaraha that whole government has to go haddii ay dab ka tahay macnaha uusan asaga shaqo ku lahayn oo bahashaan laga hoos bixiyey uusan ka warqabin siduu leeyahay hadday saas tahay then waa ra-iisul wasaarahaaga ina mataqaanaa ka shaqaysay sidii banaanka lagu soo dhigi lahaa oo aad u adeegsatidna baarlamaankii shalay yiri qalbi dhagaxna argagixiso maaha oo nalafna argagixiso maaha iyagaasaana calaa xaqa ah iyagaasaa xaqa ku taagnaa maantana kii way soo baxday oo waa ninkaas hadda aad arkayso adduunyada soomaaliyeed oo meel kasta hadda loogu istaagaa anagana berrita ku tuunsanayn oo xilliga shanaad u tagi doon sheeko kale waa iyadan insha allah waa tahay daawadayaal waa su-aasha u dambaysaan joognaa qaybtii afraad oo dhan dib baan u dhigaynaayo waxaan ka codsan doonaa abuukar inuu mar kale fursadna siiyo waa showgi gaarhaye oo idinkaga imaanaya stuudiyahayaga magaalada london waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdulwaaxid cabdullaahi khaliif waxaa isku soo dabariday ustaad muxyidiin diiryen nuur wadani oo canada jooga gaarhaya waa golahaas gacalka soomaaliyeed gees kasta oo ay dunida ka joogaan u gudboon yihiin dowladdu gurna kama qaadano gacansaarna mucaarad kalama lihiin cid gooni ahna uma adeegin fikirka waa lagu kala gedsanaan karaa danta guudsa waa mid gooniya ayaan gabagabada hadalku waanu kuu garownay gaar hayow geyiga ilaali labeentii soomaalida idiin keennaa oo dhaqaatiirtii iyo culummadii iyo aqoon-yahanadii kale iyo halabuuradii leh caawana waxaan idin haynaa gaar hayii u weynaa buukar carmaan oo aan la ka gaban fikirkaas waliba asagoo diblomaasiya oo badanaa diblomaasiyiinta xoogaa arrimaha waa suba salaaxaan laakiin marka aad buu u mahadsan yahay mudana su-aasha u dambaysa oo kugu soo xirayna waa tii aan ku bilownay oo ah baydhabo 3 ilaa 5 juun waa shirkii ay u bixiyaan golaha amniga qaranka waatay fadhiyeen waabatay dhaheen bajudhiiba arrimo waaweyn oo dastuurkiiba u xaniban yahay sida xuduudihii iyo khayraad qaybsiga waa ku heshiin waxay u dan lahayn shalay intay halka istaagaan inay baryotamaan oo lacag loo saxiixo ma intaasay rabeen u dan lahaayeen mise wax kalaa jira mise dhow mid waa taas midda kalena waa in xalaaleyntii waaye nugta shalayka xalaaleyntii ahayd qodobkaas isaga istaad ogtahay yani waa wixii lagu ammaanay xukuumadda inay mataqaanaa fulise ayay ka mid ahaayeen oo dadkaanan ognahay inay weli ishaystaan amar iska qaadanaynin oon is ixtiraamaynin oo dulinimada aan ku wada noola haddana waxna loogaga dhigay dad wada heshiiyo hal af yani hal maskax iyo hal ra'yi iyo hal hadaf qaraneed ku wada socdo marka taas waxay ahayd keliya in hoosta laga xiriiqa arrintaasi oo la yidhaaho nimankan waa heshiiyeen khayraadkiina sidii loo wadaagi lahaana waa ku heshiiyeen laakiin waxaa la yaab leh oo runtii yani aan isleeyahay aan rajaynaa runtii yani inay warbaahintii dadka kaloo dhegaysan doonay inay su-aalahaas weydiiyaan lahawa war khayraadka sidee loo kala lahaan karaa haddii aan xuduudihiiba ka ogeen gumaalay kaleyihiin xuduudihi weli laysku haystaa yani kuwan hadda halka dhinaca oo soomaaliya ka tirsan la leeyahay iyo halkii mid oo go'naayo dhahay xuduudihii waxaan aaminsannahay oo ingiriiska intaba waxay isku haystaan waa xuduudihi shayga xuduudaha arrinta qusayso xuduudaha iyo khayraadka see loo kala qaybsanaa waa saatiri constitutionkii xataa dib waxa loogu gudbin inaan loogaga hadlin tafaasiisheeda hoose aan la ganin because waa controversial haddii inan dadka heshiinin walaaliheenan is-aaminaynin siday khayraadkan u wadaagi karaan ama danaha mataqaana maslaxada kasoo gaari karto waxay tahay aysan weli fahamsaneen dan marka maxaa waxa la wadaagayo waxa la wadaagayo waa afar jeedleyda oo mataqaanaa waxay buufsadaan jeebabka ka buufsadaan mugta afar mehe waa lixad bartaanintii lixdoodaba yani wax yar yar oo ay helaan iyo kuwa madaxa loogu saraaxo iyo kuwa la yidhaha 2012 waa soo noqonaysaa على فكرة وانا كجري قدر خاص وكلا تعرفوا كجري إن اللي هي إنه منطقة election كذا فورية election one man one vote لو بكون لغاتني مدعي كان سواء تصنع مدعي كان وأسباب في هدايا كان كوشي أنا كان كهذا يعرف قبل كبنات أو كذا هدي تاس أقولها dan kuwii xalanay iyo calooshooda shaqaystayaashii beesha caalamkii magacadoonta ugu yar waxa waaye wixii ay maanta faraqa ku haysteen waa iyagoo mataqaanaa shacabka ra'yigiisa u dhiibteen yani
fact haddii la yidhaha waa boodgacinaysaa haddii ay karto berita ma controli karta dhinacay ugu shubahayaan ama shaksiga ay kuwa kale ka jeclaan doonaan ama power aad siisay political power aad siisay oo hadhowdii adiga xataa kugu eriyaan yidhaha nimankaa meesha maxay u dhex fadhiyaan taasna cid hadda diyaar u ah ma jirto marka waa iska madadaalo guddigaa la sameeyo waxaa la qabanaya waa iska sheeko aniga kolley kasaasaan tuulisanahay wallahu aclam ma isbedeli karaan waxaan waa siyaasad waa isbedeli karaan yes laakiin hadda waxaan arko waxaan umalaynaya in sidaas nalagu sii madadaalinayo marka su-aashaadii ahayd heshiiskii baydan yes shalayto qodobada ugu horreeyo laga hadlay uu ku jiray leeyahay macnaha inay heshiiska noocaas oo kaleeto inay diyaareen sidoo kalena waxaa la yidhi macnaha dad kastoo ka hor imaanayo ama sabotage ku samayn karo qaabkii hadda wax ku socdaan in laga hortago fiiri hadalka magigaa dhihi jiray 2011 ironically waxaa la yaab leh dadku uu berigaas inta ku haystay yani ka daba hadla haddaa xasuusatid waxaa kamid ahaa farmaajo xataa oo prime minister berigi laga eriyey tuhume macnaha inuu sabotage ku samayn doono arrimahan kiya marka ilaa imaanta aan socoto mar walbaba marka la yidhaha xoogaa shacbiga wacyigooda ku dhacayo ama waxay u eg tahay in dad ay ka hor imaan doonaan fulinka oo mashaariicdan ay dadkan maanta odan ka hadlay ay wataan markay xoogaa tuhum noocaas soo galo handadaadiyaa bilaabmaysa handadaadii ahayd cid ka hor imaan karta ma laha waxaan waa sidan inay u dhacdo mucaaradkana ma ogin dad ka mid inay qoryo wataan malishooyin inay dad digayaan kama warhaya haddii dad noocaas jiraan konteena kale waa un afkaar waxaan ku diidsan anigana sidaan ku eri yani from day one adigana xistay jazakallahu khayran waxa waaye cidna sidaadoo kaleeta walaa mucaaradaana jirin walaa muxaafidaana jirin حتى ما شو قلنا عن طبعا عن سود أنت كلام كي ما كل مرة واضحنا مرة بدنا عن قرارات قلنا بني هذا نعم لكن ما شافوا حتى قلنا طبعا عن كذا بقول هديه اللي بتقول محافظ في حتى يجاسن وزناه هديه معارض في قلنا بنعاسن هديه كله كان شعب كي يجاسن الله ده حدا صار كفر مركا ندي من الدبلوماسية يعني هذا غير عن كل شيء الشركات حاطة بالإنسان من كل شيء واحد يري لا بكون طلنكي جنرال أسمبلي يوان دانجومي قضية سومالية محترمة وأنت أنا بقدر وبدك بروتوكول سومالي أنا كسر شقين جري أي أطلع فضلنا مثلا السجل وكيز في رماية بقدر ومركز هذا سؤال وحضرتك أنت أنا على فضل مركا سفير جوران لنا قصة بيه وحول من شنقرين مقاعيك وضي مونا لفضل يا مركا مركو مقعا مطلق ليسو جيش جعانتك شخص أساس بعد ويجيب مثل كوفي وسيها لكو قلمي هذا الجيش ميلي هذا هذا لأنه حمد الله أصبرتين بحكومة سيها لكو قلمي بس وغنين سفير oo qoraayo isheeg maqaal oo ku dhaliilaayo xukuumaddiisa ya weligeed lama arkay marka waxaa idhaahdeen waa runta protocol ahaan markaad tirahay waa runta laakiin adiga mid ogo waxaan aayadana maaha axaadiisna maaha waxaan wuxuu ilaahay soo dejiyey maaha waxaan waa system bini aadan samaystay bini aadankana markay sidaas oo kale mucaamalada noocaas oo kale diblomaasiyada ay samaynayaan waa marka maxaa la dhahaa wadciga jiro markaas markuu waafaqsan yahay diblomaasiyada noocaas annaga waxaan ku jirnaa wadcigii ka duwan ma la joogo waktigii oo mataqaanaa gadaal in loo fadhiisto mercedeska oo cidda lagaa fogaayo lama joogo haddaan aniga hadlayna adigana hadasho adiga haddaad hadlaysa aniga waa aamusa hadduu qof kale noo hadla aniga waa aamusa aniga waxaan iska dhigaa aniga diblomaasiga ahay good guy maxaa la dhahaa good copy bad kaban ciyaaray adna askariga fiicnaan noqo anna kii xumaan noqona ama anaa kii xumaan noqona adigana kii fiicnaan noqo saas oo kale laakiin intaysan taas jirin yaan la iscaburinin yaan la aamusinin qofka waxa og maanta ha ahaada wasiir ha ahaada madaxweyne ha ahaada prime minister waddanka waajib waxa ku ah oo ilaahay iyo berita uu kala hortagayo inuu qofkaas hadlo waayo waktigaan la maraayo wakti la aamusi karo maayo marka
hadduu qofkii aniga booskaas aan aasan wasiir aan ahay ma hadli karo protocolkan raaca protocolkii aad isqabtaan marka qabriga ha kula gala protocol muqtidayna taala qortaga protocol waqtigiisa lama joogo xilliga lagu jiro waxa waaye waa inaad ka hadashid xataa inaad ka hadashid wixii aad fici kartidna aad fahdid wajaakum allah khayr ما خير الله كسيه waxaan noo harsaneed qayb aad u muhiim ah oo ku saabsan nabadgelyada iyo ammaanka muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya laakiin waqti bay qaadanaysaa marka dadweynaha waxaan yani rajeynayaa inaan danjire abuukar aan mar kale ka codsano marka hadda waqti noo haray male waxaan ahayn inaan u mahad celino safiirka hore ee Soomaaliya u fadhiyay Mareykanka waqtigii Shariif aqoon-yahana ah arrimahana saad maqlayseen si toos ah uga hadla oo aan la gaban gaar hay haddaad maqashaan ku weynaa maanta aad haysaan meel ku qorta marka asaga iyo adinka waxaan leenahay jazaakumullahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaa barnaamijka dambe ku xiga ilaa barisaad dambe insha allah assalaamu calaykum waraxmatullah